几个人能做1000人，哎呀，卫生madaxweynaha Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweyne ku-xigeenada Jale Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar iyo Jale Sareeye Gaas Xuseen Kulmiye Afrax iyo madaxda kale la socotay meelaha kale ee xadhiga ka jiray waxa kale oo kamid ah dugsiga tababarka shaqaalaha oo isaguna qayb weyn ka qaadan doona sidii farsamo yaqaano shaqaale ah markaasi uu dalkeenu u yeelan lahaa waxaana dugsigaasi uu ka kooban yahay qolalka wax lagu barto kuwa jiifka iyo meelo kale oo markaasi qayb ka qaadanaya xagga taakulaynta ama kalkaaliyaasha waxbarashada ee dugsiga tababarka shaqaalaha ee magaalada Muqdisho dugsigaasina run ahaantii waxa uu qayb weyn ka qaadan doonaa xagga sare u qaadida tayo iyo tira ahaaneedba ee shaqaalaha dalkeena oo xirfad markaasi u leh si ay u hantaan shaqada qof waliba markaasi la doonayo in uu si fiican uga soo baxo macadka waxaa ka dhiman in laami lagu shubo wadooyinka iyo shubka loo hagaajiyo dhirayntii oo hadda socota qodistii ceelka oo hadda dhammaatay oo wasaaradda iyo hay'adda GTC iska kaashadeen intaas kadib Jale madaxweyne iga ogolow inaan mahadnaq hortaada uga jeediyo dawladda iyo shicbiga Jarmalka federaaliga ah oo kaalmo wax ku ool ka geystay dhismaha maxadkan farsamada oo aan qabno inuu qayb weyn ka qaadan doono aqoonta iyo farsamada shaqaalaha Soomaaliyeed waana arrin aad hadda ka hor in maxadkaas la dhiso Jale madaxweyne waxaan ka codsanayaa inaad muuqato library oo maxay kana halkan waxa weeyaan hoosooyinkii hore ee aan ka soo guuray oo xarunta kala dhinacaani waxa lagu talagalay markii hore Jarmanka inay ka dhistaan 8 guri laakiin markii dambe way iska daayeen oo kharashkii halkan ay ku dareen waxay ku kordhiyeen halkan sidaas oo kale waa isla sawirkii oo kana madaxweynaha Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre waxa uu kaloo xariga uu ka jaray xarunta dhexe ee jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho oo xaruntaasina ay tahay mid casri ah taasi oo ay isugu yimaadeen xaruntaasi qaybaha kala duwan ee kulliyadaha jaamacadda ummadda gaar ahaan intooda ugu fara badan oo markaasina la doonayo in meel kaliya laga maamulo si markaasi ay u sahlanaato in lala xiriiro kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda ummaddu ay u baahan tahay waxaana kambaskaasi lacagta ku baxday ay gaaraysaa 200 milyan oo shilinka Soomaaliga iyada oo uu dhisay yahay hab seerkalaha oo casri ah taasi oo uu leeyahay qolalkii shirarka meelaha xafiisyada iyo isla marhaantaasi qolalkii kale ee lagu koriyay iyadana fasalada ardaydu ay wax ku baranayso ee kulliyadaha kala duwan ee cilmiga ee dalkeena iyo kuwa kale ee artiska ama edebka ah ee dalkeena qaarkood
madaxweynaha Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa meel kasta oo markaas xadhiga uu ka jarayba si fiican ugu soo dhaweynayay mas'uuliyiinta goobahaas iyo madax sare oo ka tirsan xisbiga iyo dawladda iyo dadweynaha ku dhaqan gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadaha u dhow mashruuc kastaba marka la furayo xaafadaha iyagu u dhow ee la jaarka ah jaamacadda oo kamida mashaariicda gudbaxaadka u ah howlqabadkii kacaanka 21 Oktoobar 1969 waxa uu ku fulay iyo mintidka gaar ahaaneed ee farsamo yaqaanka iyo shaqaalaha Soomaaliyeed taasoo cadeynaysa markii niyad wadaninimo jidho oo midaysan la hirgelin karo mashaariicda mararka qaarkood shakiga dadka qaarkii galiya inay fulayaan mashruuca jaamacadda wuxuu ka kooban yahay haddaan wax yar tusaale ka siiyo madaxweyne ku soo dhawaad mashruuca jaamacadda qaranka oo ay fulisay wakaaladda dhismaha Soomaaliya maqaskina waxay ii tahay farax weyn in maanta la furayo saldhigga weyn ee xarunta waxbarashada heerka jaamacadeed ee dhallinyarada Soomaaliyeed waa jireen kuwa hore aan u dhisnay hab ka fudud ama ka yaryar inta hadda kan uu yahay laakiin waxaan aaminsanahay tan maanta aan furaynaa jaamacadda tan dhismadeeda oo ka koobanta nooc kasta oo waxbarasho intooda badan inay ahaan doonto mid dhalinta Soomaaliya ay kaga baxdo jahaalada qodada dheer anoo aaminsanay si badsan doonaanin waxyaalaha ka maqan ama xubnaha ka maqnaan karaba oo aan leeyahay weli inaga nafteennu haddaynu abuuranno mooyi inaynu ku shaqaysan lahayn iyo in kaleeto mar haddii waxyaalo badan maqan yihiin waxay ii tahay farax weyn waxaan markaa mahad u celinayaa qolooyinkii nagala qayb galay riyadii goor 8 sano laga joogo aan bilownay in jaamacad aan leenahay oo wax walba leh dhismaheedii aanu gallo oo ah suuqa reer Yurub isla markaasna qolooyinka muxuu ahaa Sacuudi Carabiya iyada nafteedu ay qayb nagala qaadatay waxaan aad iyo aad ugu jeedinayaa ammaan iyo bogaadin mudnaaneed madaxdii hogaaminaysay dhismaha kan khaas ahaan injineer Axmed Barre